bayaan ku saabsan wardheer iyo xidhiidhka dawlad deegaanka. xilliyadii u dambeeyay oo dhan waxaa gobolka Doolla ka jirtay dhibaato ka abuurantay maamulka gobolka iyo qaabka ay dawlad deegaanku u maareysay. shacabka ayaa ka biyadiiday magacaabista gudoomiyaha cusub ee gobolka iyo saami qaybsiga gobolka. arrintaasi waxay dhalisay banaanbaxyo baahsan. banaanbaxyadaasi waxaa u dambeeyay midkii la qabtay Arbacadii oo taariikhdu ay ku beegneyd 5 bisha Juun 2019 kaasoo ay ciidamada ammaanku xoog ku kala kaxeeyeen dadkii banaanbaxayay. dhibaatooyin badan iyo xadgudubyo baahsan ayayna shacabkii u geysteen. waxaa dhaawacyo kala gedisan loo geystay dad shacab ah oo qaar dhaawacyadoodu ay daran yihiin. waxaa sidoo kale xabsiga loo taxaabay dadweyne aad u fara badan. dadka la xidhxidhay waxaa ka mid ah xubno ka tirsan maamulka xafiiska jowxe ee magaalada Wardheer oo qaab shirqool ah loo qabtay iyagoon wax lug ah ku lahayn banaanbaxyada ka dhacaya gobolka. banaanbuuxu wuxuu ahaa mid sharci ah, hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolkuna ay ka warhayeen. dhibaataduna waxay bilaabatay kadib markii ciidamada maamulku ay xabsiga dhigeen 2 dhalinyaro oo ka mid ah dadkii banaanbaxayay, kuwaasi oo la xidhay iyagoo oon wax shaqaaqo ah geysanin. banaanbaxayaasha ayaa arrintaasi ka cadhooday waxayna ku soo xumeen meeshii dhalinyarada lagu xidhay. hase yeeshee maamulkii gobolka ayaa dalbaday ciidamada Liubolis, kuwaasi oo markii ay yimaadeen cagta mariyay dhammaan dadkii shacabka ahaa ee aaga ka dhawaa iyagoon cidna u aabayeelin. ciidamada ammaanku waxay weerareen xafiiska jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ee gobolka Doollo, halkaasi oo gabadfulo ka geysteen iyagoo calankii jabhadda jeexjeexay. dhalinyarada xafiiska joogtayna xabsiga u taxaabay. waxay sidoo kale weerareen xafiisyadii jabhadda ee magaalooyinka Uubataale iyo Danood, waxayna sidoo kale qaateen calamadii sudhnaa xafiisyada dushooda iyagoo u hanjabay howlwadeenkii jabhadda. jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya jowxo waxay si kulul u cambaaraynaysaa falkan argagixisanimada ah ee loo geystay shacabka sida nabadgelyada ah u banaanbaxayay ee magaalada Wardheer. waxayna dawladda deegaanka uga digaysaa tallaabooyinka noocaasi oo kale ah oo horseedi kara ammaan xumo baahsan iyo in dib loogu noqdo marxaladii laga soo gudbay ee ku dhisnayd caburinta iyo xoog ku muquuninta shacbiga. jabhaddu waxay dawlad deegaanka ugu baaqaysaa in sida ugu dhaqsaha badan loo sii daayo shacabka xaqdarrada ku xidhan, isla markaana ay ka shaqayso sidii xal waara loogu heli lahaa dhibaatada ka taagan gobolka Doollo, iyadoo la tashanaysa dhagaysanaysa tabashooyinka dhammaan shacbiga walaalaha ah ee ku dhaqan gobolkaasi. jabhaddu waxaa kale oo ay si kulul u cambaaraynaysaa xadgudubyada aan dhammaadka lahayn hay-adaha dawlad deegaanku ay kula kacayaan xafiisyada iyo howlwadeennada jabhadda. dhowrkii toddobaad ee aynu soo dhaafnay waxaa maamulka dawlad deegaanku ay weerareen dhibaatooyinna u geysteen in ka badan 10 xafiis oo jabhaddu ay ku leedahay gobolada dalka iyo howlwadeenkii ka shaqaynayay. ilaa iyo haatanna maamulka dawlad deegaanku jabhadda ma ayna soo gaadhsiinin wax cabasho ah oo ka tirsanayaan xafiisyada iyo howlwadeennada jabhadda. jabhaddu waxay dawlad deegaanka uga digaysaa eedaha aan sal iyo raatoona lahayn ee jabhadda ay dusha ka saarayso si ay qiil ugu samayso cabashooyinka ay shacabku kaga cabanayaan maamul xumada iyo xadgudubyada ay kula kacayso dawlad deegaanku. dawlad deegaanku iyagaa mas-uul ka noqon doona cawaaqib xumada ka timaada xubnaha jabhadda ee loo samaynayo dembiye aynan lahayn ee maxkamadna loo diyaarinayo. jabhaddu waxay aaminsan tahay in badi dadka hoggaanka u haya maamulka gobolada iyo degmooyinka ee dawlad deegaanku ay aaminsan yihiin kuna shaqeeyaan in ka tirsanaanta ONLF ay tahay dembi. jabhaddu waxay u aragtaa falka noocan ah in ay qayb ka yihiin siyaasadda dawlad deegaanka, arrintaasina ay khatar ku tahay nabadgelyada iyo xasiloonida dalka, isla markaana si cad ay uga hor imanayso heshiiskii nabadeed ee dhex maray jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya iyo dawladda Itoobiya. jabhaddu waxay dawlad deegaanka ka dalbanaysaa in jawaab cad oo degdeg ah ay ka bixiso tallaabooyinka sharci darrada ah ee jabhadda ay kula dhaqmayso, isla markaana ay cudurdaar rasmi ah ka bixiso xidhayga sabab la'aanta ah iyo tacadiyada lagula kacayo xubnaha iyo howlwadeenka jabhadda, ayna ballan qaadaysa in aynan tallaabooyin noocaasi mar dambe dhacaynin. jabhaddu waxay diyaar u tahay inay dhinaceeda wanaajiso xidhiirka iyo wada shaqaynta ay la leedahay hay-adaha dawlad deegaanka, isla markaana ay kala shaqayn doontaa arrimaha ammaanka, horumarka iyo nabadda, laakiin uma dulqaadan doonto gaboodfallada sida qorshaysan loogu samaynayo. waxayna qaadi doontaa tallaabooyin u gaar ah oo dhibaatooyinkaas lagu xakamaynayo. jabhaddu waxay shacabka ugu baaqaysaa inaynan marna ogolaanin dib in loogu celiyo wixii la soo dhaafay, xaqoodana ay mar walba si nabadgelyo ah ku raadsadaan, nabadda iyo xasiloonidana ay ilaaliyaan.
jabhaddu waxay ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa liyu booliska ugu baaqaysaa in ay ka digtoonaadaan in mar kale shacabkooda loo adeegsado ogaadaanna inay yihiin ciidamo bulshada u dhexeeya ayna ahayn ciidamo uu xisbi gaar ee danihiisa ku fushado halkaasi ayuu ku ekaa bayaankii ay jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeynaya ka soo saartay xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada Wardheer.